Raila Amolo Odinga waa mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu caansan uguna saameynta badnaa taariikhda casriga ah ee Kenya. Inta badan 40 sano ayuu door muuqda ku lahaa qaabeynta siyaasadda dalka, isagoo markasta ahaa codka isbeddelka, cadaaladda iyo dimuqraadiyadda. Raila oo ku dhashay 7 Janaayo 1945 deegaanka Maseno ee ismaamulka Kisumu ee galbeedka dalka, waa wiilkii uu dhalay Jaramogi Oginga Odinga oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyay ee Kenya iyo halgamaa caan ka ahaa xornimada dalka. Ka hor inta uusan si buuxda ugu biirin siyaasadana, Raila wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda la socodka tayada badeecooyinka ee KEBS, halkaas oo uu ku qabtay xilal farsamo iyo maamul. Bilowgiisa siyaasadana, Raila wuxuu si rasmi ah siyaasadda u galay dabayaaqadii 1970-yadii, isagoo bartamihii 80-yadiina uu caan ku noqday mucaaradnimadiisii adkeed ee uu ku wajahay nidaamkii halkii xisbi ee uu hogaaminayay madaxweynihii labaad ee dalka Daniel Arap Moi. Sanadkii 1982 waxaa lagu xiray eedeymo la xiriira inuu qayb ka ahaa afgembigii fashilmay ee dowladdii Moi. Muddo ku dhow 9 sano ayuu ku qaatay xabsiyo kala duwan isagoo aan helin maxkamad, taasoo ka dhigtay astaan halgan iyo geesinimo siyaasadeed oo Kenya looga xasuuso. Xilalkii uu soo qabtayna, Raila Odinga wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo heer qaran iyo heer caalami ah. Wuxuu muddo 21 sano xildhibaan ka ahaa Langata waa ismaamulka Nairobi. wasiirka tamarta ayuu soo noqday 2001 ilaa 2002, halka intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2005 uu ahaa wasiirka wadooyinka, shaqada dadweynaha iyo guriyeynta. Kadib doorashadii muran ka dhalisay ee 2007, heshiis awood wadaag ah oo ay dhexdhexaadinayeen bulshada caalamka, ayaa Raila Odinga wuxuu ku noqday ra'iisul wasaaraha Kenya, xil uu noqday kii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaarenimo. Intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2023 waxaa loo magacaabay wakiilka sare ee Midowga Afrika ee kaabayaasha. Marka laga hadlayo xisbiyada iyo isbahaysiyada uu soo hogaamiyeyna, Raila Odinga wuxuu ka mid ahaa ama hogaamiyeyba xisbiyo iyo ururo siyaasadeed oo badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Ford Kenya, NDP, KANU, LDP, NARC Kenya iyo ODM. tartamadii uu ka qayb galana, Raila Odinga wuxuu 5 jeer u tartamay xilka madaxweynaha Kenya: 1997, 2007, 2013, 2017 iyo 2022, balse dhammaantooda wuu ku guuldaraysay. Doorashadii 2007 ayaa ahayd tii ugu muranka badneed, taasoo sababtay rabshado qaran, balse wuxuu markaasi ka dhaxlay xilka ra'iisul wasaaraha oo uu muddo 5 sano ah hayay. Haddaba doorkiisa uu ku lahaa siyaasadda qaaradda Afrikana, Raila Odinga waa shakhsi lagu ixtiraamo gudaha Kenya iyo guud ahaan Afrika. Haddaba sidee ayuu Raila Odinga u qaabeeyay siyaasadda Kenya laga soo bilaabo halkii xisbi ee dalka ka talinayay, gaar ahaan madaxweynihii labaad ee dalka Daniel Toroitich Arap Moi, ilaa iyo inuu ka shaqeeyo midnimada dalka? Ibrahim Maxamed Macalim ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya. Raila Amolo Odinga, hogaamiyaha xisbiga ODM, wuxuu ahaa shakhsi si weyn u saameeyay taariikhda siyaasadda Kenya. noloshiisa oo dhan wuxuu u horay halgan dheer oo ugu taagnaa xorriyadda, sinaanta iyo dhismaha dimuqraadiyadda dhabta. geeridiisa isagoo 80 sano jir ah waxay dalka gelisay murugo, iyadoo shacabka iyo madaxda caalamka ay u aqoonsadeen inuu ahaa nin door weyn ku yeeshay qaab dhismeedka siyaasadda ee Kenya iyo mideynta qaranka. bilowgii halganka iyo jibintii nidaamkii halka xisbi. dabayaaqadii 1980, Kenya waxay ahayd dal uu hal xisbi oo kaliya ka talinayay, kaasi oo ahaa xisbiga KANU uu hogaaminayay Daniel Arap Moi. qodobkii labaad ee lagu daray dastuurka dalka ee sanadkii 1982 wuxuu si sharci darro ugu dhigay dal kaliya xisbi ah, taasi oo meesha ka saartay xorriyaddii siyaasadeed iyo codkii mucaaradka. Raila Odinga oo markaasi ahaa siyaasi dhalinyaro ah ayaa u muuqday codkii mucaaradka ugu firfircoona. waxa uu la midoobay hogaamiyaal kale si meesha looga saaro qodobka qeexaya in hal xisbi oo dalka uu ka taliyo. halgankaasi adag oo ay beesha caalamka iyo bulshada rayidka la garab istaageen waxa ugu dambeyn horseeday in la tirtiro qodobkaasi sanadkii 1991.
talabadaasi ayaa albaabka u furtay nidaam xisbiyo badan leh oo si buuxda u bedelay wejiga siyaasadda Kenya. Raila wuxuu noqday astaan u taagan xorriyadda hadalka iyo halganka siyaasadeed ee shacabka Kenya. Caqabadihii iyo dagaaladii siyaasadeed, Raila Odinga wuxuu noqday hogaamiyihii ugu weynaa ee mucaaradka, isagoo la dagaalamayay musuqmaasuq, caburinta siyaasadda iyo eexda qowmiyadeed. Doorashadii muranka dhalisay ee sanadkii 2007 ayaa noqotay mid ka mid ah waayihii ugu adkaay noloshiisa. Raila wuxuu u tartamay kursiga madaxweynenimo, balse guusha waxaa xilligaasi lagu dhawaaqay inay raacday Moi Kibaki, taasi oo dhalisay rabshado waddanka gilgili oo ay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. Si kastaba ahaatee, Raila ma uusan dooran waddada dagaalka iyo argoosiga. Wuxuu door biday nabadda iyo midnimada, isagoo ku biiray wadahadalo lagu soo afjaraya qalalaasihii. Wuxuu la siixay Moi Kibaki heshiis taariikhi ah kaasi oo dhaliyay dowladdii isbahaysiga, isagoo xilligaasi u noqday ra'iisul wasaaraha dalkani Kenya. Talabadaasi waxaa loo arkay mid dib u celisay xasiloonida dalka, waxayna xoojisay sumcaddiisa hogaamineed ee qaran. Dastuurka sanadkii 2010 iyo dib u dhiskii dowladnimada, mid ka mid ah guulihiisa siyaasadeed ee ugu weynaa wuxuu ahaa kaalintiisa muhiimka ahayd uu ka qaatay dhismaha dastuuriga cusub ee sanadka 2010. Dastuurkaasi ayaa laga soo shaqeeyay kadib rabshadihii sanadkii 2007 iyo sanadkii 2008, waxaana ujeedadiisu ahayd in lagu dhiso dowladda furan, cadaaladda oo aan markaasi ku salaysnayn eex qabiil ama awood urursi. Raila Odinga wuxuu si buuxda u taageeray isbedeladaasi, isagoo ku baraarujiyay shacabka muhiimadda ay leedahay dastuurka cusub ee lagu saleeyay madax banaanida iyo nidaam daahfuran. Dastuurka cusub wuxuu dejiyay kala soocidda awoodaha dowladeed, xoojinta xuquuqda muwaadiniinta iyo hirgelinta nidaamka federaal ee awoodda looga qaybiyay 47 gobol ee waddankani Kenya ka kooban yahay. Afti dadweyne oo la qaaday bishii Agoosto sanadkii 2010 ayaa lagu ansixiyay dastuurkaasi, iyadoo in ka badan 60% shacabka ay u codeeyeen. Raila wuxuu noqday wejiga lagu kalsoon yahay ololihiisa. Waxaa lagu ammaanay sida uu bulshada ugu hogaamiyay isbedel taariikhi ah. Waxa uu ahaa hogaamiyihii midnimada iyo codkii nabadda. Intii uu noolaa, Raila Odinga wuxuu ahaa nin ku adkaystay nabadda, cadaaladda iyo wada noolaanshaha qowmiyadaha kala duwan ee ku nool waddankani Kenya. Mar waliba wuxuu ku celin jiray muhiimadda midnimada qaranka, isagoo rumaysnaa in Kenya ay dhisnaan karto oo keliya marka ay dadka oo dhan dareemaan sinaan iyo xaqsoor. Inkastoo uu la kulmay mucaarad, dhaleecayn iyo guuldarrooyin siyaasadeed, Raila weligii kama leexan waddadii uu aaminsanaa. Waxa uu noqday hogaamiye tusaale u ah dulqaadka iyo wadaniyadda. Dhaxalka uu ka tegay Raila Odinga waxaa lagu xasuusnaan doonaa sidii halgamo qaran oo dhibada ugu tagay dimuqraadiyadda casriga ee Kenya. Waxa uu ka tegay dhaxal siyaasadeed oo aan la tirtiri karin, oo kale mid ku salaysan xorriyad, wadajir iyo cadaalad. Dalka Kenya waxa uu maanta ku taagan yahay asaaska uu dhisay. Waxa uu ku jiraa taariikhda dadka geesiyiinta ah ee dalkooda nolol iyo naftaba u huray. dhinaca kale, Raila wuxuu la soo shaqeeyay dowlado dhowr ah. Hogaamiyihii rugcadaaga ahaa ee Kenya, Raila Amolo Odinga, ayaa lagu xasuusanayaa inuu ahaa siyaasi istiraatiiji ah oo heshiisyada siyaasadeed u adeegsaday dhisidda isbahaysiyo, xasilinta dowlado iyo kasbashada saameyn ballaaran, xitaa isagoon weligiisa qaban kursiga madaxtinimada. Muddo dheer oo uu ku jiray siyaasadda, Raila wuxuu heshiisyo iyo isfahan la galay 4 madaxweyne oo kala ahaa Daniel Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta iyo William Ruto, taas oo muujinaysa xirfadiisii ku dhisneed wadahadal, diblomaasiyad iyo la shaqaynta kuwii uu la xifaaltamayey. Heshiiskii ugu horreeyey safarkiisa siyaasadeed wuxuu ka bilaabmay xilligii halka xisbi ee uu hogaaminayay Moi, oo markii hore uu aad u mucaaraday. Sanadkii 1997 Raila wuxuu u tartamay madaxtinimada isagoo watay xisbi kale, wuxuuna galay kaalinta 3aad. hase ahaatee 4 sano kadib, xisbigii uu watay Raila wuxuu heshiis la galay KANU oo uu xilligaasi hogaaminayay madaxweynihii labaad Daniel Moi. Isbahaysigaasi wuxuu burburay 2002. Heshiiska kale ee labaad wuxuu dhacay doorashadii 2007 kadib rabshadihii dalka ka dhacay ee horseeday 1200 oo qof inay geeriyoodaan. Raila iyo Kibaki waxay 28 Febraayo 2008 kala saxiixdeen heshiis uu garwadeen ka ahaa Kofi Annan, kaas oo lagu dhisay dowlad wadaag. Xilligaasina uu noqday ra'iisul wasaare kadib markii guushii madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta uu gaaray doorashadii 2017. Hal sano kadib, 9 Maarso 2018, Uhuru iyo Raila waxay ku dhawaaqeen heshiis ku caanbaxay handshake,
intaasi kadib bishii maarso 2015 aynu ku guda jirno iyadoo dalka ay gilgileen mudaharaadyo looga soo horjeedo canshuuraha iyo sicir bararka Raila ayaa la saxeexday heshiis madaxweyne William Ruto heshiiskaasi ayaa mideeyay xisbiyada ODM iyo Kenya Kwanza oo ay kala hogaaminayeen Raila iyo madaxweyne William Ruto isagoo la sheegay inuu yahay qorshe lagu dhisayo dawlad midaysan oo ka shaqeysa horumarinta qaranka haddaba madaxweyne William Ruto ayaa xaafadda Karen oo uu ka deganaa Raila Odinga ugu tagay tacsi isagoo intaasi kadib dib ugu soo laabtay aqalka madaxtooyada wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay in dalka uu galay maalmo baroor diiq ah iyadoo la sameeyay guddi dawladda iyo qoyska Raila Odinga ka socdo si ay isugu dabaridaan aaskiisa wariyahayaga Xasan Macalimo ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda dalkani Kenya mudane William Samoei Ruto ayaa maanta ku dhawaaqay 7 cisho oo baroor diiq qaran ah kadib geeridii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkani Kenya mudane injineer Raila Amolo Odinga inta lagu guda jiro muddada baroor diiqa caalanka Kenya ayaa loo dhigi doonaa si uu u ahaado meel dhexe gudaha dalka iyo dhammaan xarumaha diblomaasiyadeed ee dalkani Kenya ay ku leedahay dibadda madaxweynaha dalkani Kenya mudane William Samoei Ruto ayaa sidoo kale hakiyay dhammaan kulamada rasmiga ah ee dadweynaha ee horey loo qorsheeyay wuxuuna shaqaalaha dawladda ka codsaday inay raacaan go'aankan si loo muujiyo tixgelinta iyo ixtiraamka marxuumka waxaa la shaaciyay in Raila Odinga loo qaban doono aas qaran waxaana arrintaasi loo xilsaaray guddi qabanqaabo oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya mudane Professor Kithure Kindiki iyo senatorka Siaya Oburu Odinga. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period iyadoo lagu sharfayo doorka taariikhiga ah iyo kaalinta uu qaranka Kenya ka qaatay Raila Amolo Odinga waxaan ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroor diiq qaran ah inta muddadaasi lagu guda jiro calanka qaranka Kenya wuxuu hoos uga loolan doonaa dhammaan dhulka jamhuuriyadda iyo safaaradaha dibadda iyadoo lagu muujinayo tixgelin iyo ixtiraam waxaan dib u dhigay anigana dhammaan howlihii iyo kulamadii dadweynaha ee aan qorsheeyay maalmaha soo socda waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda iyo hogaamiyaasha kale inay sidaas oo kala sameeyaan si aynu wadajir ugu midowno murugada qaran xusuustiisa iskaashi aan la sameynayno qoyska Odinga awgiis waxaa la dhisay guddi isku dhafan oo ay si wadajir ah u gudoomiyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka Professor Kithure Kindiki iyo Oburu Odinga si ay u hagaan diyaarinta iyo qabanqaabada aaska qaran dawladda India ayaa aqbashay in meydka Raila Odinga laga soo qaado dalkaasi kadib codsi rasmi ah oo ay u dirtay dawladda Kenya wafdi gaar ah oo ka kooban mas'uuliyiin dawladeed iyo xubnaha qoyskiisa ayaa si degdeg ah ugu safraya Hindiya si ay ugu diyaar garoobaan soo qaadista meydka wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya Musalia Mudavadi madaxa wasiirada Kipchumba Murkomen wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Ali Hassan Joho wasiirka macdanta madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa ku tilmaamay Raila Odinga inuu ahaa aabihii dimuqraadiyadda Kenya isagoo xusay in geeridiisu ay tahay khasaaro weyn oo qaran oo soo gaartay dalkani Kenya. Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity. Raila wuxuu noloshiisa oo dhan u horay halganka cadaaladda sinaanta iyo xurriyadda wuxuu u adkaystay xabsi iyo silac si qarankani uu helo uguna naaloodo dimuqraadiyad dhab ah isagu wuxuu hormuud ka ahaa isbedeladii horseeday xuquuqda iyo xurriyadaha aan maanta ku faano codkiisa wuxuu ahaa midka u hadla kuwa la dulmiyay aqeedadiisuna waxay dhiirigelisay jiilal badan aragtiyihiisu waxay qaabeeyeen jihada taariikhdeena Raila Amolo Odinga wuxuu ahaa hogaamiye aan caadi ahayn haliyay fikradiisu ay ka sareeyeen xuduudaha siyaasadda isla markaana dhaxalkeeda uu dejin doono mustaqbalka Kenya jiilasha soo socda. Legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come.